asalaamu calaykum waraxmatullah. jasiiradda Soqatra halkan waxaan kuugu soo gudbinayaa warbixin ku saabsan jasiiradda Soqatra. haddii aad nala socotay maalin dhow waxaan ka hadalnay jasiiradda Seychelles oo deris nala ah. maanta sidoo kale waxaan ka wardooni doonaa deriskeenna, laakiin dhanka waqooyi bari aan u jeesanno. waxaa muhiima inaad ogaato inta aanan mawduuca bilaabin in aanan ka hadli doonin cidda iska leh Yemen mise Soomaaliya, ee aan ku siin doono keliya warbixin ku saabsan jasiiraddaas. ku soo dhowaada mawduuceena maanta. marka koobaad aan ku bilowna faahfaahin degdeg ah ku saabsan jasiiradda Soqatra. Soqatra waxay dhacdaa badweynta Hindiya ee xeebaha geeska Afrika, ku-aadka degmada Calawle ee bariga Soomaaliya iyo albaabka bari ee gacanka Cadan. badka guud ee Soqatra waa 3769 kiiloomitir oo isku wareegsan, taasoo ka dhigan inay 3 mar ka weyn tahay dowladda Baxrayn ee khaliijka dhacdo. barta ugu dhow Soqatra dhulka Yemen waxay ka fog tahay 300 kiiloomitir, halka magaalada Cadan ay 900 kiiloomitir u jirto, laakiin dhinaca kale wax ka yar 100 kiiloomitir ayay ka baxsan tahay xeebaha bari ee Soomaaliya. dhererka jasiiradda waa 125 kiiloomitir, ballaceedana 42 ilaa 50 kiiloomitir. dadka ku nool waxaa lagu qiyaasaa ilaa 175,000 oo qof. magaca Soqatra waa magacii ugu horreeyay ee loo bixiyo. qaabab kala duwan ayaa loogu dhawaaqaa sida Soqatra, Suqatra, Suqutra, Suqatra. inkastoo Yaquut al-Hamawi uu leeyahay magaca Soqatra waa Carabi, haddana waxaa la rumaysay in asal ahaan magacan uu ka soo jeedo luuqadda Sanskrit oo ah luuqad Hindi qadiimi ah, oo waxaa la leeyahay magaca Soqatra wuxuu ka imaaday Sukahatra oo micnaheedu yahay jasiirad. sidoo kale Duwayfa Sukahatra, jasiiradda sacaadada. sidoo kale arshiifka ama kaydka taariikhda Gariiga waxaa ku qoran in loogu dhawaaqo Du Sakaridis. taariikh ahaan, tuulo lagu magacaabo Raakif oo dhacda bariga jasiiradda Soqatra ayaa waxaa laga helay raadad ama goob kumanaan sano ka hor lagu samayn jiray dhagaxaan loo adeegsan jiray adeegsiga bini'aadamka. waa casrigii dhagaxaanta ama casrul xajari, ama xilligii dhagaxaanta laga qori jiray midiyaha la adeegsado. waa sida ay sheegeen guddi baaritaan ruush iyo Yemeniyiin iskugu jiro. sidoo kale waxaa laga helay qubuuro ay ku jiraan qolfoof dadeedo aad qadiim u ah iyo weliba midiyo biro ka samaysan. alaabtaas dambe waxaa lagu qiyaasay in la adeegsan jiray waqti hadda laga joogo ilaa 3,000 oo sano. sidoo kale deegaan jasiiradda ka tirsan oo lagu magacaabo Aryuush ayaa waxaa laga helay sawir gacmeedyo ku sawiran dhagaxaan, laakiin lama xaqiijin taariikhdeeda. waa sawiro la mid ama u eg kuwa laga helay jasiiradda Carabta. lama yaqaana taariikhaan markii uu bini'aadamku lugta dhigay jasiiradda Soqatra, laakiin in lagu magacaabo Alexander Sidorov oo ah caalim ruush ah oo ku takhasusay raadraaca dadkii hore, ahna madaxa mutxafka shucuubta mutaxadiriinta ee ruushka oo hogaaminayay guddiga baaritaanka ruushka ee Soqatra gaari ayaa leh waxaan aragnay goob lagu noolaan jiray xilli aad u sii horraysay, taasoo daliil u ah in jasiiradda xilli aad u fog la deganaa. dadka ku nool jasiiraddan sida ku qoran arshiifka ama kaydka caalamiga waa dadkii ximiiriyiinta Yemen ee ka soo haajiray Mehera oo Yemen ka tirsan, iyo weliba Yemeniyiin mar hore ka soo haajiray Afrika. waxaa muhiim ah inaad ogaato in 3,000 oo sano ka hor waa xilligii uu dumay biyo-xireenkii Ma'rib in Yemeniyiin fara badan u haajireen jasiiradda Carabta qaybaheeda kale, dhulka Shaam ilaa Afrika. suuratu Saba ayaa arrinkaas ka warrantay. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. inkastoo jasiiraddu soo martay mawjado duulaan Burtuqiis, Ingiriis iyo aqwaam kala duwan, haddana waxba kama bedelmin dadka ku nool. sida ku qoran kitaabka lisaanul carab ee Xamadaani qoray, asalka dadka jasiiradda degan waxay ka imaadeen Mehri binu Xiidaan. laakiin haddii aan wax yar fiirino sida ku qoran arshiifka ama kaydka Soomaalida
in dadka dega jasiiradda suqatra ay yihiin qabaa'il carab maxamuud saalix oo ah dad Soomaali ah waxayna daliilsanayeen in dadka halkaas degan ayna ku hadlin af carabi laakiin waxaa xusid mudan in carab maxamuud saalix ay yihiin meheriyiin oo ah dad dego Yemen ilaa saltanadda Cumaan halka sidaan soo sheegnayba dadka suqatra ku nool ay yihiin meheriyiin haddaba si kooban dadka halkaas degan waa meheriyiin haddii ay yihiin Soomaali carab maxamuud saalix ama Yemeniyiin suqatra waxaa looga hadlaa luuqadda mehera oo ah luuqadda ay ku hadlaan dadka meheriyiinta ah waa luuqad aanan carabi ahayn Soomaalina ahayn waxaa lagu xisaabiyaa luuqadaha African Asian Language ku soo dhawaada qaybta ugu dambaysa mawduuceena oo ah macluumaad iyo faahfaahin kala duwan oo ku saabsan jasiiradda Suqatra caasimada Suqatra waa magaalada Xadibo Suqatra waxaa hoos yimaada jasiirado yaryar oo kale ah Darsa Samxa Cabdilkuuri Siyaal Cabdilkuuri Siyaal Suqatra jasiiraddan waxaa lagu magacaabaa jasiiradda cajaa'ibta waxaa ku yaala geedo aanan ku oolin meel kale oo caalamka oo dhan ah sidoo kale waxaa ku nool duurjoog kala duwan shimbiro aanan laga helaynin meel kale oo caalamka waxaa la diiwaan geliyey in 850 nooc oo geedo kala duwan ay ku yeelaan Suqatra 270 ka mid aanan laga helaynin meel kale oo caalamka ah waxaa kaloo jasiiradda ku yaala 10 nooc oo dhir ah oo qarka u saaran inay dabar go'aan meel kalena lagama helo caalamka oo dhan geedkan aad sawirkiisa daawanaysaan waxaa lagu magacaabaa geedka dhiigga walaalaha meel kale caalamka lagama helo keliya Suqatra ayuu ku yaalaa waxaa ku nool jasiiradda ilaa 179 nooc oo shimbiro ah oo intooda badan aanan laga helin meel kale caalamka waxaa ka mid ah shimbirka alhaasija wuxuuna leeyahay cod aad u macaan oo dhagaha soo jiidanayo iyo noocyo xunshooyin gorgor kala duwan ah heerkulka jasiiradda waa mid iska dhexdhexaad ah una badan wax yar dhinaca kulaylka 27 ilaa 30 digrii inta u dhaxaysay darajadu gaartaa dhanka qaabka dhulka ama waxa lagu magacaabo tadaariis jasiiraddu waxay leedahay dhul kala duwan haddii ay noqoto dhinaca buuraha bannaanada togaga waaweyn sida idiin muuqato sawirkan waa tog ama bohol ku taalo Suqatra 2008 jasiiradda Suqatra waxaa lagu daray meelaha lagu magacaabo dhaqanka ama taariikhda caalamiga ah waxaana diiwaan geliyey hay'adda UNESCO waxaana lagu magacaabay meelaha adduunka ugu yaabka badan 2010 jariidada New York Times ayaa ku tilmaantay jasiiradda Suqatra inay tahay jasiiradda caalamka ugu quruxda badan uguna yaabka badan wixii ka horeeyay 2013 jasiiradda Suqatra waxaa lagu xisaabin jiray inay maamul ahaan raacsan tahay gobolka Xadramawt ee Yemen laakiin taariikhdaas ayay noqotay gobol goonidiisa u taagan waa marka laga hadlayo dhanka Yemen dadka ku nool Suqatra waxay adeegsadaan dekedda magaalada Mukalla ee gobolka Xadramawt ee Yemen oo ah meesha ugu dhow bariga Yemen oo u jirta 300 kiiloomitir safar qaadanaya 2 ilaa 3 maalin oo dhanka badda ah ayay iskaga kala gooshaan Suqatra iyo Mukalla fadlan haddii aad qadarinayso juhdiga diyaarinta barnaamijkan oo aad daawanayso mawduucan kuna cajab geliyey fadlan commentiga ugu horeeya waa linka kanaalka cusub ee ogaansho fur kadibna subscribe dheh wixii ramadaanka ka dambeeyay insha Allah halkaas ayaan u wareegi doonaa oo qaybtan ama kanaalkan waan xiri doonaa arrimo jira awgeed wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh